عياره وامدون أبادي كعاني حدد وردنا لغو دسا عياره وامدون أبادي كعاني حدد وردنا لغو دسا halkan aynu joogno waa Cawaale Stadium waxa ka socota ciyaar dhex maraysa gobolka Mudug iyo gobolka Nugaal waxa daawanaya kumanaan taageero oo ka kala yimid sagaalka gobol ee Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya ciyaar aad u xiiso badan baa socota haafkii hore la dheelayaa waa eber iyo eber waxa aad u cajiib ah dhammaan taageerayaasha u soo daawasho taga ciyaartan sida ay ugu xamaasadeysan yihiin xilligan oo ay tahay 3 galabnimo qorraxdu aad u kulushahay garoonku waa buuxa banaanka waxa taagan taageerayaal raba inay garoonka soo galaan balse ay u suuroobi weeday dadka qaybtood waxay yimaadeen 12 duhurnimo si ay u daawadaan ciyaar bilaawanaysa 3 galabnimo ciyaarahan u nimid waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxnay maanta ay taagan tahay garoonkii Cawaale Stadium Cawaale oo ah aabayaashii ka mid ahaa SYL ninkii haysta calanka loo magac daray marka garoonkan ummadda Soomaaliyeed wuxuu u leeyahay magac aad iyo aad u weyn waa laba magac waa asagoo ka tirsanaa SYL iyo asagoo ah haysidihii oo calankan marka runtii ciyaarta maanta waxay maraysaa final waxaana finalka isugu soo baxay laba kooxood oo markii horeba saadaashii markii predictionka la waxaynayay la dhahay waxa soo baxay Nugaal Mudug bari markii ciyaarihii la arkay say ciyaaruhu u ciyaarayeen marka predictionkii la waxayna waa runtii waxa isugu yimid Nugaal iyo Mudug oo maanta ay tahay final waa runtii ciyaar aad u qiimo badan waxaana runtii noqotay sportigii Puntland inuu wax badan oo iska bedelay dhalinyaradii awoodooda aqoontooda knowledge-gooda isdhexgalkooda oo aad iyo aad u sareeyo marka aad iyo aad u faraxsanahay safarkan ka yimidna all the way down Canada Toronto I'm very happy waxaan ku farxo daawado ku raaxaysan arag maanta waxa dheeliyay Mudug iyo Nugaal waa ciyaar xamaasadeeda leh dad aan qiyaastii aan ahayn numberkii laakiin aad u tiro badan ma sha Allah baa imaaday garow badan baa imaaday oo garow ka safra gaalka caw imaaday tan waxa ku cadeynaysaa bulshada Puntland inay tahay bulsho sportska aad u jecel dhalinyarada Puntland siyaasadda in laga jeedin karo sports lagu mashquulin karo hadda iyaamaan siyaasadda iyo wasaqnimadeeda waa ka raysanay waa ka nasanay banooni baa ku jeesanay marka dawladda Puntland waxaan ka codsanayaa inay xagga sportska dardar geliso dhalinyarada ma taqaana haday noqon lahayd baaskiilada haday noqon lahayd orodka haday noqon lahayd basketballka haday noqon lahayd kuwa ku fiican xarikaboodka inay dhalinyarada mashquuliso dhalinyarada entertainment ka dhigto dhalinyarada ay xidigo ka dhigto si ma taqaana ay dhalinyarada adduunka ula tigsadaan laakiin dhalinyarada maanta waxa moodaa inay qabyaalad dagaallo waxyaalo aan loo baahnayn nacayb in lagu ababinayo moodaa عرونو كبدوا عادي مذوبي
عشاء